abgeschoben werden, wegen der Sicherheitslage in Somalia. Gleichzeitig postet er solche Videos. Ich schwöre, ich gebe euch $20.000, wenn ihr eine Miliz gründet. Davon könnt ihr Maschinengewehre kaufen. Das verspreche ich euch. Ayub A. bietet online Geld für den bewaffneten Kampf in seiner Heimat Somalia, aus der er selbst geflüchtet ist. Allein auf bishii dhamaatay ee July 2025 waxaa barnaamij ku saabsan Soomaalida laga sii daayay telefishinka koobaad ee Jarmalka. Wuxuu ahaa barnaamij baaris ah oo ay ka soo muuqdeen shakhsiyaad caan ah oo Soomaali ah. Waxaa ka mid ahaa Kabtan Ayub iyo Yacquub Siyaad oo baraha bulshada caanka ah iyo Maxamed Cabdullaahi Faraxle oo madax ka ah hay'adda Seeko ee ka dhisan magaalada Worms. Barnaamijka waxa uu ahaa mid aan horey loo arag noociisa. Wuxuu indhaha bulshada Jarmalka ku soo jeediyey Soomaalida. Wuxuu sawir aan wanaagsanayn si isku mid ah uga bixiyey qof kasta oo Soomaali ah oo dalkan ku nool. Intaas kuma simine wuxuu sidoo kale kala qaybiyey bulshada. Waxa loo adeegsaday in la iska horkeeno bulshada. Ku soo dhawow barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno saameynta uu bulshada ku yeeshay barnaamijka laga sii daayay telefishinka koowaad ee Jarmalka. Xogo ku saabsan sida barnaamijka loo diyaariyey doorka Soomaalida iyo xoojinta midnimada bulshada la iska horkeenayo. Waxaan ahay Tahliil Colaad, ku soo dhawow barnaamijka. Axmed Cabdullaahi Axmed oo ku magac dheer Axmed Kadiye waa maamulaha bogga Soomaalida Jarmalka. Axmed waxa uu ka mid ahaa dadka lagu casuumay inay barnaamijka ka qayb qaataan oo lagu wareysto kahor inta aan la dhammaystirin ama la sii deynin. Tahliil waa mahadsantahay in badan adiga iyo asxaabta kale dhegeysanaysa. Arrinta qaabka ay ugu soo gaartay ka hadlo page-keena waxaa saaran link yara saaran. Linkigaas oo aan ugu talagalnay qof walba oo Soomaali ah oo Jarmalka degan in uu riixo haddii wax ay ka dhacaan magaaladiisa ama degmadiisa ama agagaarkiisa uu nagala soo xiriiro noo sheega xataa sawiro xataa iyo wixii uu kusoo diri karana noogu soo diro. Marka waa form saaran page-keena markii lasoo boqdo linkiga. Linkigaasaa marka dadka igala soo xiriiraan gabar ayaa fariin ii soo dirtay. Fariin markay ii soo dirtay arrintii ay ii tilmaamtay waxay dhahday waxaan doonaynaa oo barnaamij laga sameynayaa Soomaali TikTok isticmaashay qaabkaas oo dagaalaya waxyaabo kale. Markaasaa waxaan dhahay tafaasiil ay bixisay. Markaasaa waxaan dhahay waa ka xumaanahay TikTok iyo waxyaabaha ma isticmaalo arrimahaasna aad ulama socdo. Intaas kumaysan ekeysanin. Maalmo kadib marka maadaama aan fariintaas uga jawaabay maalmo kadib haddana mar kale warqad ii soo qortay waxay dhahday waxaa jeclaan lahayn inaa u warantid telefishinka iyo wax noocaas oo kale telefishinka waadi Jarmalka waxaa kula soo xiriiraya qof magacaas iyo magacaas iyo magacaas waa ka xunnaan dhahay kama ma gelayna arrintaas waayo arrin maaragtay muhiimba uma eko. Intaas kumaysan ekaanin marka maadaama ay hore usii sheegtay in telefishinka Jarmalka uu soo hadlaayo warqad oo nin wariye ah soo diray magaciisa Daniel Donat la dhaho haddaan qaldaneyn Daniel Donat ayaa wuxuu ugu soo diray Gmail-ka email ugu soo diray. Axmed waa ku salaamay waxaan doonayaa sidaas Gmail-kaygana waxaa soo siinayo isla dadka Soomaalida ahaa ee kuwa ila soo xiriiraya siiba gabar ila soo xiriirtaan ka wada. Marka Daniel Donat ayaa la dhahaa saana nahay. Marka waxaan rabaa inaan barnaamij ka sameyno influencerada Soomaalida iyo Afrikaanta ee Jarmalka ku nool qaabkaas oo kale. Nambarkayga waa kana. Fariintii waa arkay kama jawaabin. Fariin kale wuxuu ku soo diray page-ka Soomaalida Jarmalka maalintii ku xigtay. Markuu ku soo diray fariintii waa fiiriyey markaa akhriyey okay nambarkiisaan qaaday WhatsApp-kan qoraal ugu qoray. Waa kana Axmed Kadiyaan dhahay. Fariintaadan waa akhriyey. Soo dhawow. Markaas wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan kaa wareysto. Markaas toos usii cadeeyo influencerada Soomaalida Afrikaanta ee Jarmalka ku nool iyo wax noocaas oo kale. Gaar ahaan waxaan doonayaa inaan Kabtan Ayub kaa wareysto. Markaasaan yidhi waa ka xumahay aniga arrimahaas aad uma follow gareeyo. Waana xaqiiqo badanaa waxa waaye live-na ma daawado. Internetka waxaan kusoo qoraa badanaa feedback-aan sii fiiriyaa inta ugu badan waa kasii baxaa marka. Waxyaabo kale aan baaraa ama akhriyaa howlo kale kusii jiraa. Marka isku soo duub. Markaas wuxuu yidhi maku soo wici karaa maya iri maya markaan dhahay kadibna wuxuu dhahay waxaan doonaynaa macluumaad sidaas waxaan dhahay kuma caawin karaan dhahay dhankaas. Kadibna wuxuu dhahay dad iga caawin karo ma taqaanaa. Waxaan ku dhahay maya qofku caawin kara hadda garan maayo. Aan ku soo wuxuu yidhi waxaan dhahay hadda ma hadli karo. Xaqiiqeen ahayd maba hadli karinbo qofac iyo waxyaabo kale is yahay. Axmed waxaa lama filaan ku noqotay sida ay u socotay diyaarinta barnaamijka iyo halka la gaarsiinayo xifaltanka ka bilowday baraha bulshada ee Soomaalida dhexdeeda ahaa uu gaaray heer warbaahinta caalamiga ah. Walow hadallada faldambiyeedyada loo adeegsan karo
kicinta iyo hurinta colaadaha ay keeni karto caqabado sharci oo ka dhalan kara. arrinta dareensana ayaa waxay ahayd in Soomaali dhexdooda wax walba oo ka dhaco ha ka dhacaan, laakiin telefishin in la isla gaaro, in meelo kale la isla gaaro, arrin waxay noqon kartaa sidii tusbax furtay oo kale. Beri meel kale ku biyo shubanayso, waxay noqon kartaa arrin maaragtay yacni arrin aanan meel wanaagsanin iyo meel aan wacnin xataa ku dhamaanayso ayay noqonaya. Maxamed Cabdulaahi Faraxle waxa uu ka mid ahaa dadka barnaamijka lagu soo qaatay ee eedaynta loo jeediyey, taas oo saamaysay hay-adda uu madaxda ka yahay ee Seeko. Laakiin Maxamed wuu ogaa diyaarinta barnaamijka. horta anaga barnaamij aan la soconay buu ahaa Sofiso mar walbana wuu bixi lahaa barnaamijku haddaan anagu ka qayb galay haddaan ka qayb galin marka waxaan dooranay anagu in aan ka qayb galno maadaama uu barnaamijku muhiim noo yahay oo anagu u aragno in macnii adoo taagan aan lagugu been abuuran ee wixii ka dhihi kartid aa ka dhexdid marka taasaa runtii muhiim ahayd laakiin alxamdulilah hadda guulo aad u waaweyn aan rabno inaan asbuucan iyo asbuuca ku xiga soo bandhigno ayaa laga gaaray maadaama hay-adda Seeko dee waxaan waxa ay shaqo ku lahayd iyo waxa ay midna iyadu qayb ka ahayd aysan ahayn laakiin la doonayay ceebtu waxaa la yidhi waa labo midna waa mid aa leedahay midna waa mid lagugu tiro marka mid la doonaya in lagu tiro bay ahayd laakiin alxamdulilah waddankan waa waddan sharci iyo nidaam ka jiro arrintan dadku inay fahmaan waxaa muhiim ah waxaana waa brobagando warbaahineed weeye waxaanu ma aha xukunna ma aha dowladna ma aha nidaamna ma aha ma jirto xataa anaga iska daaye dadkii kaloo hawsha lagu eedeeyey cid maxkamad looga yeeray ama wax kale loo diray midna ma jirto maalmo kadib waxaa fariin ii soo diray Maxamed Cabdulaahi Faraxle oo gudoomiye ka ah hay-adda Seeko ee magaalada Vomis marka wuxuu ii tilmaamay qolada telefishinka uu ii tilmaamay marka inay wareysan rabaan xataa wuu ii tilmaamay shakhsiyan waxaan u tilmaamay fikirkeyga waxaan dhahay maxamedow dadka wax wareysi la siiyo ma istaahilaan telefishinka waadan ka wada jarmalka sababtoo ah waxa ay raadinayaan inay negative yihiin aan u sheegay inaysan wacneen yani telefishin markuu maanta kusoo waco oo jarmal ah hadduu Soomaali u baranburaayo oo Soomaali wax u sameynayo wanaagsan markaas oo kale qaab loogu waramo qaab wax loogu sheegay way jirtaa laakiin xaaladda sidaas oo kale ah marka adigu Maxamed fikirkiisa waxay ahayd inuu telefishinka markaasi wixii warbixin uu siin karo uu siiyey inkastoo telefishinka xataa si xun ay u dhaqmeen oo hay-adiisii waxay qabateen inay ka weecdeen oo meel yar oo point yar un ay kasoo qaateen hadalkiisa dhan isku soo duub arrinta naftirkeeda waxaa dhacday in lagu burburiyo Maxamed xirfadiisii in lagu burburiyo hay-adiisii in howlihii uu qaban jiray xataa blog la geliyo caqabad la sii saaro wax uusan mudnayn macnaha soo qof active ah oo dadaalayo oo ugu yaraan bulshadiisa magaaladiisaas degan iyo bulshadiisa agaarkaas degan wax u qaban karayo Soomaalida Jarmalka intuu wax gaarsiin karo wax u qaban karaas oo iska ahaa ayaa wixii dhan laga burburiyay xaqiiqada marka laga hadlo ma uusan istaahilin taa Sii deynta barnaamijka waxa uu saameyn taban ku yeeshay hay-adda Seeko, taas oo keentay in magaalada Vomis ee ay hay-addu saldhiggeedu yahay ay wada shaqayntii kala dhexaysay Seeko hakiso ama joojiso. aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan bulshada Soomaaliyeed Jarmalka runtii ugu shaqaysaan iyo sida mar walba xogta aad ugu bayaanisaan haddaan exactly u gudbo su-aashaada runtii waxay nagu yeelatay saameyn aa wada ogtiin idinkoo dhan oo ay ka mid tahay in barterriskii annaga runtii nagu xiriiray maadaama hay-adda Seeko ahayd aad iyo aad dowladda u dhex gashay oo mashaariic fara badan dowladda kala shaqaysa programyo fara badan aad iyo aad loo aaminay in mashaariicdii aan ku shaqaynay oo dhan kulligood yaan dhihin laakiin qayb ka mid ah in la hakiyo tani inta arrintaas xal rasmi laga keenayo kalsoonidii aan ugu qaban xafiisyada dowladdu wax saameyn iyadoo kuma yeelan laakiin in mashaariicdii maadaama mashaariicdu ay yihiin wax dhaqaalo ku baxo dhaqaalahuna ay u baahan yihiin mataqaanaa ay dee aad ogtihiin waddankan in aad iyo aad loo fiiriyo in runtii nala ka xayira dhaqaalaha qaarkood programyada qaarkoodna nala ka hakiyey tan iyo intaa ay barnaamijkan xal laga keenayo Gudoomiyaha golaha ajaanibta ee magaalada Kassel Cabdulaahi Waceys ayaa waxa uu aaminsan yahay in arrimaha la xiriira barnaamijka laga sii daayay telefishinka koowaad ee Jarmalka ay tahay natiijo taban oo ka dhalatay sida qaldan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay u adeegsadaan baraha bulshada. marka de waxaan isleeyahay arrimahan waxay ka dhasheen wixii barabagaankii adkaa ee social media ka socday hadday noqoto TikTok hadday noqoto Facebook oo saameyntiisii dhulka timid meene dabcan dhulka timid waxaan ka wadaa markii aan joogno dal
European ah oo shuruuc leh. Shuruucda dalka u degsan qofka waa inuu ilaaliyaa. Haddii uu u dhaqmo sidii inuu joogo xeradii geela ama banaankii Soomaaliya, dabcan waxay noqonaysaa arrin aan sii socon doonin. Mastar Wacays waxa uu aaminsan yahay in si looga hortago kala qaybinta bulshada ay muhiim tahay in sharciga iyo nidaamka dalkan la xushmeeyo oo laga fogaado wax kasta oo qalqal amni, subcad xumo iyo dhibaato u soo jiidi kara bulshada Soomaaliyeed ee dalkan magangelyada iyo nolosha u soo raadsatay. Wallahi waxay ila tahay waa mida horta sharciga dalku yaala in la ilaaliyo. Waxyaalaha annaga nala fudud aanan u arkin in ay dhibaato tahay, dalkan Jarmalka dhibaatay ka tahay. Marka number one, qofka inuu sharciga Jarmalka inuu barto oo uu ilaaliyo, oo wixii asaga dhibaato ah ee ku imaanaya inuu aad uga digtoonaado waa laga maarmaan. Labo, qofka Soomaaliga ah ee Jarmalka ku noolo waxaa ogaataa in adiga keligaa aadan noolayn ee adiga aad tahay qof safiir ah, qof tusaale ah. Marka qofka walaalka ah ee Soomaaliga ah ha u soo jiidin dhibaato, communitygaaga ama dadkaagana ha u soo jiidin dhibaato. Marka aad dhaqmaysana u dhaqan si wanaagsan. Arrimahan hadda bilowdayna waxay ila tahay haddii aanan annaga dhexdeenna ka waantoobin oo dee waxa Soomaaliya ka socda Soomaaliya ka socdaan. Laakiin markaan halkan ku noolnahay nolosheenna way ka duwan tahay Soomaaliya. Halkan shuruuca ka jirta, shuruucdaas inaan ilaalino, inaan wada noolaanshaheena, inaan communityna. Waxaa ogtihiin annaga ka Soomaali ahaan waxaaba dhibaata noogu filanba inaan 3 shay kulansanay. Qofka Soomaaliga hadduu intaas ogaan lahaa waxay ila tahay dadka Soomaalida ah dhexdooda dhibaata kama dhacdeen, isma aysan farta iskuma aysan fiiqeen, isma aysan qaqabsadeen. 3 shay waxay tahay qofka Soomaaliga ah ee Jarmalka ku nool waa qaxooti number one. Jarmalkana waa laga neceb yahay qaxootiga. Waa qof madow qaybo fara badan oo Jarmalka ka mid ah. Waa cunsuriyiin oo dee dabcan laftirkeeda arrintaas iyada ma arrin oo positive ma aha. Haddana waa dad Muslim ah oo waxaa og tahay inuu Jarmalka jiro ama guud ahaan Europe waxa la yidhahda Islamophobia. Dadkeenana waa muslimiin. Marka saas darteed arrimahaasoo dhan ayadoo la fiirinaya qofka Soomaaliga sidiisuu u dhiban yahay. Haddana haddaan annagii isugu sii darsanno inaan shuruucdii ilaalin weyno oo aan 24 saac maxaa la dhihi jiray dagaal hurin, isfarmuuqid, mashaakil, TikTok oo la iska caayo, dagaal beelbeel la isula safto aynu halkaa ka wadno waxaa imaanaysa marka dambe yani mustaqbal xumo aad u xun. Waxaa imaanaysa ishaysadkeena wanaagsan, positive wanaagsan aan leenahay. Dadkeena Soomaalida masaajiday leeyihiin, way isku xiran yihiin. Isku xirnaantaas dhibaato weyn ah soo gaari doonta. Marka saas darteed dalkii wixii ka jira ka jiraan, laakiin marka innaga aan halkan joogno inaan si kale u fikirnaa laga rabaa. Dad badan ayaa qaba in arrimaha la xiriira barnaamijka telefishinka laga sii daayay aanu ahayn wax loo saarin karo reer ama deegaan, balse ay tahay arrin ay shakhsiyaad Soomaali ah ku lug leeyihiin, kaas oo aan u hiilinaynin wada noolaanshaha iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed ee Jarmalka. Axmed Cabdullaahi Axmed Kariye ayaa ka mid ah dadka fikirkaas qaba. tahliil oo arrintan horta Soomaalida qaar waxaa laga yaabaa markuu barnaamijka soo baxay telefishinka laga soo daayay waxay u arkeen dhinac kale weeraraya wax noocaas oo kale u arkeen. dhinac ama qabiil kale weeraraya wax noocaas oo kale. Xaqiiqada runta markii laga hadlo dadka Soomaalida halkan jooga waa dad walaalo dhalinyaro ah oo soo raadsadeen danahooda iyo mustaqbalkooda oo yani dantooda ku mashquulsan ama sharci halaadaan ama aysan lahaanin ama howl ku jiraan ama xirfad barasho ku jiraan ama waxbarasho ku jiraan. Marka dad qaar oo Soomaali ah oo maaragtay aanan niyad wacan lahayn oo aad u qaab daran waxay ka dhex arkeen
in arrimihii Soomaalida maalinba mid inay ku dhegi karaan oo public ka dhigi karaan ayagoo markaasina maaragtay Soomaalidii madax isku gelinayaan. Marka Soomaalida madax isku geliyaan oo kale waxay ka faa'iidayaan waxay tahay in Soomaalida dhexdoodii ay ayaga xataa isjaajuusaan oo yacni reer hebel baa saas yeelay anagana reer hebel aan saas yeelayna camal oo kale. Marka hawl intaas sana ku qaadan lahayd dadka ay madax isku geliyeen awgeed in waqti gaaban ay ku qaadato kale. Marka waa wax loola dan leeyahay, loola jeedo maanta loolama jeedo oo keliya Kabtan Ayuub walaa Yacquub Siyaad iyo qof kale ma ahan xataa hadaf koowaad iyo hadafka ugu dambeeya ma ahan xataa. Hadafka wuxuu yahay Soomaaliya in madax la isku geliyo maalinba mid ay saas oo kale oga soo dhex baxaan ilaa xataa ay ka gaaraan qofka imaamka oo iska miskiinka oo masaajidka tujinaya xataa ay u raadiyaan waxay ku arkaan iyo waxaysan ku arkin. Qof dukaan jooga xataa inay madax la galaan, cid walba inay madax la sii galaan. Waa dad noocaas hadhowna ay ka dhigaan marka Soomaalidii ayaga inay qaab qabiileed ama qaab qof iyo qof kale ah isku haystaan oo kale. Waana arrin aad u fool xun, waana wax bilowday ka hortag maba jiraba awal hore ma jirin, laakiin ka daba tag oo kale inuu yeesho ayay noqon doontaa. Guddoomiyaha hay'adda SECO Maxamed Cabdulaahi Faraxley waxa uu dareensan yahay in saamaynta barnaamijkan uu yahay mid bulshada ku soo noqonaya. Wuxuu ku baaqayaa adkaynta wadajirka ummadda iyo horumarinta, wuxuuna bidhaaminayaa halista kala qaybinta bulshada. horta barnaamijkan oo bulshada siyaalo badan buu u saameynayaa oo negative ah. Kow wuxuu u saameynayaa waxa koowaad waxa weeye dadkan Jarmalka iyo khaasatan weliba dadka runtii cunsuriyadda ka shaqeeya iyo mataqaana ummadda kala geynteedu waxyaalahan kale waxyaalaha ka faa'iidaystaan waaye waxyaalaha abuuri kara bulshada ajnabiga in la sii nabcaado weliba khaasatan Soomaalidu awalba aan caga badan ku taagnayn barnaamijkoodu oo runtii uu ahaa barnaamij garanaysa dhibaatada ka haysta waddankan. Marka cusuriintu caawinayaa wuxuu caawinayaa sidoo kale oo mataqaanaa oo fursad siinaya kuwa dadka kala qaybiya oo necab. Sidoo kale Soomaalida dhexdeedana waxaa la rabay in looga faa'iidaysto si oo negative way ah. Waxaa jira haddaa xasuusto Soomaaliya oo kale waxaa jiray caruur fowdaayo intay qaataan dhagax 3-4 reerood ku dhufta oo reerayaasha dariska oo dhan madaxa isu geliya. Marka sidaas si la mid ah hadda reer kama wada laakiin waxaan ka wadaa sidaas si la mid ah baa la rabay ummadda Soomaaliya Jarmalka in madaxa la isu geliyo. Laakiin anagu mas-uuliyaddan qaadanay waxay noqotay inaan waxaas sharaq u siin dhegta ee aan shaqada noo taala qabsano oo ah wixii sharcigu xaq noo siinaya inaan isku difaacno. taasaana runtii dee wixiina waa warbaahintuna qaab iyo framework baa jira looga jawaabo maadaama wixii uusan ahayn wax oo nidaam dacwadeed oo sharci ku dhisan. Marka runtii waxaan ugu baaqi lahaa dadkeena Soomaaliyeed ee Jarmalka waxa la doonaya waxa weeye in dadka la kala qaybiyo. Waxa la doonaya waxa weeye in ummadda Jarmalka joogta ee Soomaalida oo awalba aan cagabada ku taagnayn oo anagu meelo badan iyo godad badan ka soo saarnay in maanta lagu celiyo meelihii oo dhan oo mataqaanaa wixii aan dhisaynay 15 sano waxaan dhisaynay in Soomaalidu isku timaado munaasabadaha la wada qabsado dadku ay waqti wada qaataan ummaddu ay waxyaalaha badan faraaruq keenaya oo dadku kala duwan yihiin. Waxaa muhiim ah tahliilow anigu reerkaan ahay ma dooran deegaankaan ahay ma dooran qofkaan ahay ma dooran meeshaan degaya ma dooran ma ogta waxyaalo badan waxaa jira qofku uusan ikhtiyaari u lahayn isagoo ilaahay subxaana watacaala uu u dooray. Marka Soomaalidu waxay ku mashquushaa wixii ilaahay u dooray bay dood ka keenta. Laakiin wixii iyaga laga rabay inay qabtaan oo ah inay si wanaagsan u dhaqmaan inay wax bartaan inay hormaraan inay ummadda adduunka wax la qaybsamaan dood kama doodaan oo kama fakaraan oo kama shaqeeyaan. Marka waxaan dhihi lahaa dadkayga war wixii adiga gacantaada ku jiro awooddeeda leedahay inaad go'aan ka gaadhid kaa ka shaqee kaas ummadda ugu shaqee. waxa diintu amartay waxa nafteenu amartay waxa weeye in qof akhlaaq leh oo ummadda mataqaanaa wanaagooda iyo maslaxadooda ka shaqeeya inaad noqoto dhibtaada iyo adinkaaga iyo afkaaga ummadda ka haysato. muhiimadu waa intaas. Gudoomiye ku-xigeenka dalladda masaajidda ay Soomaalida maamusho ee dalka Jarmalka Sheekh Cabdirashiid Xasan waxa uu aaminsan yahay in isku duubnida ay tahay arrin muhiim u ah bulsho dhaqan iyo diin leh oo jooga meel ka fog dhulkoodii. Wuxuu si gaara bulshada ugu naseexaynayaa inaanay ku lug yeelan faldambiyeedyo iyo waxyaabo bulshada sawir qaldan ka bixin kara. bismillah horta marka ugu horeysa Soomaalida Jarmalka joogta dee horta Jarmalku waa iska ballaaran yahay ummadda Soomaaliyeedna way fara badan tahay xoogna way u soo galeen baryahan dambe in ummaddii diintoodii iyo dhaqankoodii loo ilaaliyo oo
diintoodii oo islaama iyo dhaqankoodii oo soomaaliya inay dee ilaashadaan oo ku walaaloobaan weeye ta qura ee imanka ugu muhiimsanina waa taa waxa weeyaan waddan baa lasoo galay horta aanaan dhaqankeenii inaan isku dhaqan iyo isku midab iyo isku diin ahayn markaa in la isku duubnaado oo cid waliba meesheeda iska abaabusho oo soomaalidu iyagaa cid isu xigay inay dee hal qoys weeyaane ay is urursadaan oo afkoodii iyo dhaqankoodii wada ilaashadaan ilaahayna ka baqaan walaaltinimadoodana ilaashadaan ta ugu muhiimsan horta waa taas dhallinyaradu marka hore dee horta waa dad muslina waxayna u baahan yihiin inay manhajkoodii iyo diintoodii iyo marjacoodii u noqdaan halka masaajid ugu dhowna ay la xidhiidhaan iyaguna isdhowrtaan oo isxanaansadaan magacii ummaddeenna iyo sumcaddii diinteennana ay ilaaliyaan waxyaabahan foolxumada iyo dhaqamadan cunana ay ku kacayaanna inay ka waantoobaan oo sharaftiisii iyo sharaftii qarankiisii iyo sharaftii diintiisaba uu ilaashado taasaa ugu muhiimsan axmed kadiye waxa uu qabaa in xilligan ay muhiim tahay in bulshada soomaaliyeed ee jarmalka degan ay muhiimad siiyaan midnimada iyo wadajirkooda tahliilo waa mahadsantahay in badan horta annaga ka soomaali ahaan ka soomaalida jarmalka ku nool oo kale qofka soomaaliga waa in uu dareemaa halkan markuu ku sugan yahay inuu qof soomaali yahay cid qabiilkiisa taqaana ma jirto caadiyan maanta haddii wax wanaagsan sameeyana soomaali wanaag sameeyu noqonaya haddii uu xumaan sameeyana soomaali xumaan sameeyu noqon haddii uu dhinto xataa soomaali dhintay uu noqonaya marka aayad quraan kariim oo waxaa jirto wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu soomaalida markii aayaddaas ay isticmaalayaan qaybta dambe ay kasoo qabsadaan wa qabaa'ila litacaarafu ay dhahaan qabiil ahaan si lasoo barto marka wa qabaa'il naftirkeeda waxaa ka horeyso wajacalnaakum shucuuban shacabkaas anaga shacab soomaaliyeed aan ahnay oo halkan ku nool oo dad qurbo ku nool noloshooda iyo waxooda inay hagaajistaan rabaan marka qofku inuu dareemo qayb shacabkaas ka mid inuu yahay in midnimo waxay ka bilaabataabo qofka hadduusan shacabka xataa wax badan u samaynin dadka walaalihiis bulshadiis wax badan u samaynin in uu horta wanaagooda hadduusan ka shaqayn karin wanaagooda xataa inuu markaa dhibkiisa iyo wixiisa ka ilaalsado soomaalida jarmalka waxay kala daadsan yihiin 16 gool ay kala daadsan yihiin inta la og yahay 400 iyo dhowr magaalo iyo degmooyin iyo tuulooyin ay ku kala daadsan yihiin kala degan yihiin marka qayb walba meel degan in ay iswalaalsato waaba isku dano waaye wixii danahoodan iska walaalsadaan waxay isla qabsan karayaan isla qabsadaan wixii xuquuqo ka maqan qaabka iskula raadin lahaa iskula raadsadaan maanta qofkii dhahaa yani dad qaar way dhihi karaan waraan Soomaali uma baahni halkaana ku noolaa dad qaar way dhihi karaan laakiin xaqiiqada jirtaa waxay tahay qofkii xataa saas u hadlaa maanta hadduu caawa dhinto dadka duuganaya meedkiisa in la guba xataa ka ilaalinaya Soomaali kale waa يعني qofka asoo nool iska dhaafay asoo geeriyooday Soomaaliis u baahan yahay xataa qofkii aanan garaadkiisa gaarsiinin inuu halkaas ogaado xataa marka qofka sida caadi ah inuu bulshahaan Soomaalidu u baahan inuu dadkiisa iska dhex galo iskala sheekaysto mararka qaar xaalad wareystan wuu u baahnaa asoo nool iyo asoo geeriyooday halkaa u baahnaan doonaa marka dadku inay ka shaqeeyaan qayb walba meel degan si gaar ah iyo si guud kuwii isgaari karaba inay iswalaalsadaan taas waa mid ah qofkii aanan awoodin inuu Soomaali soo dhex galo ama Soomaali in uu wanaag ka dhex sameeyo aan awoodin inuu Soomaali dhibkiisa un ka hayo Soomaalidana inay dareemaan qof meeshan qabiil iyo wax inuusan jirin oo qof kalena ma aragtay uusan isku dayin inuu qabiil ahaan u dhibaateeyo fikirka axmed waxaa xoojinaya gudoomiyaha hay-adda seeko maxamed cabdulaahi faraxley horta barnaamijkan bulshada siyaalo badan buu u saameynayaa oo negative ah kow wuxuu u saameynayaa waxa koowaad waxa weeye dadkan jarmalka ah iyo khaasatan weliba dadka runtii cunsuriyadda ka shaqeeya iyo mataqaana ummadda kala geynteedu waxyaalahan kale waxyaalaha ka faa'iidaystaan waaye waxyaalaha abuuri kara bulshada ajnabiga in lasii nabcaado weliba khaasatan soomaalidu awalba aan caga badan ku taagnayn barnaamijkoodu oo runtii uu ahaa barnaamij garanaysa dhibaatada ka haysta waddankan marka cusuriintu caawinayaa wuxuu caawinayaa sidoo kale oo mataqaanaa oo fursad siinaya kuwa dadka kala qaybiya oo necab sidoo kale soomaalida dhexdeedana waxaa la rabay in looga faa'iidaysto si oo negative way ah waxaa jira haddaa xusid soomaaliya oo kale waxaa jiray caruur fowdaayo intay qaataan dhagax 3-4 reerood ku dhufta oo reerayaasha dariska oo madaxa isu geliya marka sidaas si lamid ah hadda reer kama wada laakiin waxaan ka wadaa sidaas si lamid ah baa la rabay ummadda Soomaaliya Jarmalka in madaxa la isu geliyo laakiin anagu mas'uuliyaddan qaadanay waxay noqotay inaan waxaas sharaf u siin dhigta aan shaqada noo taala qabsano oo ah wixii sharcigu xaq noo siinay inaan isku difaacno
taasaana runtii dee wixiina waa warbaahintuna qaab iyo framework baa jira looga jawaabo maadaama wixii uusan ahayn wax dee oo nidaam dacwadeed oo sharci ku dhisan marka runtii waxaan ugu baaqi lahaa dadkeena soomaaliyeed ee jarmalka waxa la doonaya waxa weeye in dadka la kala qaybiyo waxa la doonaya waxa weeye in ummadda jarmalka joogta ee soomaalida oo awalba aan cagabada ku taagnayn oo anagu aan meelo badan iyo godad badan ka soo saarnay in maanta lagu celiyo meelihii oo dhan oo mataqaanaa wixii aan dhisaynay 15 sano waxaan dhisaynay in soomaalidu isku timaado munaasabadaha la wada qabsado dadku ay waqti wada qaataan ummaddu ay waxyaalaha badan faraaruq keenaya oo dad kala duwan yihiin waxaa muhiim ah tahliilow anigu reerkaan ahay ma dooran deegaankaan ahay ma dooran qofkaan ahay ma dooran meeshaan degaya ma dooran ma ogta waxyaalo badan waxaa jira qofku uusan ikhtiyaari u lahayn isagoo ilaahay subxaana watacaala uu u dooray marka soomaalidu waxay ku mashquulshaa wixii ilaahay u dooray bay dood ka keentaa laakiin wixii iyaga laga rabay inay qabtaan oo ah inay si wanaagsan u dhaqmaan inay wax bartaan inay hormaraan inay ummadda adduunka wax la qaybsamaan dood kama doodaan oo kama fakeraan oo kama shaqeeyaan marka waxaan dhihi lahaa dadkayga war wixii adiga gacantaada ku jiro awooddeeda leedahay inaad go-aan ka gaadhid kaa ka shaqee kaas ummadda ugu shaqee waxa diintu amartay waxa nafteenu amartay waxa weeye in qof akhlaaq leh oo ummadda mataqaanaa wanaagooda iyo maslaxadooda ka shaqeeya inaad noqoto dhibtaada iyo adinkaaga iyo afkaaga ummadda ka haysato muhiimaddu waa intaas ugu dambeyntii maadaama ayadda sidoo hadda munaasabad weyn oo puntland night loogu magac daray oo 2 bisha agoosta aan qabanayno sabtida ah waxaan fursaddan uga faa'iidaysanaynaa inaan bulshada dhan ugu baaqno midnimo iyo wadajir iyo calool isku fiyoobaan iyo kalsooni intaas ayuu ku dhan yahay barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay saameynta ka dhalatay barnaamijka telefishinka koowaad ee jarmalka laga sii daayey ee uu ka diyaariyey shakhsiyaad soomaali ah barnaamijka waxaa si gaara diiradda uga saaraynay xoojinta midnimada soomaalida jarmalka iyo adkeynta wadajirkooda waad ku mahadsan tahay dhegeysiga barnaamijka waa tahliil colaad oo kaaga tagaya nabaadiino